Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada walaalaha media walaalayaal. Waxaan idin haynaa maanta wax markii aad sameysaan idinkii guusha ay idin dhexan doonto kaliya waqtiga. Ma tahay qof dareema walwal markuu shaqeynayo ama markuu fasalka joogo, noqo arday ama shaqaale ama qof noloshiisa maareeya. Ma dareenta inaadan waxaas qaban karin? ma ka walaacdaa oo dadka kale markay shaqooyinkooda qabsanayaan adigu ma tiraahdaa maxaad qofkaas u ahaani weysay? haddaba haddii aad rabto inaad gaarto horumar ama aad horumariso noloshaada, walaal waxaan idin haynaa 2 siyaabood oo aad ku horumarin kartaan. marka aad samaysaanna adiga guusha waqtigoon idin dhexeen doono. waad ku mahadsantiin walaalayaal daawashadiina. haddaba mid aan idin sheegay ama labadii shay aan idin sheegay midka ugu horeysa haddii aan idin sheego walaalayaal, waa hard work midka ugu horeeya. waa dadaal qof walba uu aqoonsan yahay, laakiin ma sameynaa waa maya. markaan joogno shaqooyinkeena, shaqadeena anagoon dhameynaa ayaan ka tagnaa. kasoo qaad markaan loo diro layliga ama macallimiinta inoo diraan shaqooyinka, waxaa jira arday qaar aanan sameynin wixii, laakiin dhahaan aniga waxaan sameynayaa beri toole ama beri dambo ama waqti badan ayaan u haystaa. masase ma ku gaartaa adigoo wixii lagaga baahan yahay ma haysaa? ma imaataa fasalka ama shaqadaada adoon waxba diyaaraysan ku ahayn? haddaba intaan shay haddii aad samaysid waxaad wanaajin kartaa dadaalkaaga. qeex hadafyada wanaagsan ee noloshaada sida joogtada iyo maalin kasta. tani waxay kaa caawinaysaa inaad dareento dhiirigelin markaad isku daydo kobciso qabashada shaqadaada. midda kale, ku faan guulaha yaryar si aad uga hesho dhiiranaan oo aad ku qabani kartid kuwa adag. ileen mar walba aad qabatid midda yaryar waxay ku fududaysaa si aad u taakul garayso midda weyn. hana isdhihin midda weyn way adag tahay. mar walba noloshaada ku day inaad qaban karto kuwa adag, waayo waxay kaa dhigayaan qof adag, mas'uuliyadna qaadi kara. waxayna ku hirgelinayaan inaad noqoto mid ku dadaala hawshaas. ileen hawsha adag siinbir waqti ay u baahan tahay. isku day inay cawashadaadu yaraato, waayo siinbiri ma jecla dadkaad ku dhex nooshahay ama bulshadaada. qofka cawashadiisa ay badato waxaa yaraada waxqabadkiisa. mar walbana bulshada sawirka ay kaa aaminayaan waxaa noqonaya inaad tahay mid macnaha haddiiba wax loo dhiibo ka cabanaya. waxayna noqonaysaa in dadka dhan ay ka aamin baxaan oon waxba lagu dhiibanba ama shaqo aan lagu dirsan. taasina waxay kaa dhigaysaa mid caajisoola ah ama aan dadaalkiisa laba jibaari karin. marka isku day siinbiri inaad yarayso cajiskaaga walaal. haddaba midda labaad aan usii dhaadhacno, waxaan kasoo hadalnay dadaal. haddaba dadaalkaaga si uu u noqdo mid macnaha miro dhala, waa inaad samaysaa midda labaad oo aanan ka marnayn marnaba dadaalkaad soo samaysay, oo ah consistent wax loo yaqaano, ama inaad joogtaysid dadaalkaaga aad soo sameynaysay. yuusan noqonin dadaalkaaga mid xiisa oo kaliya ah 5 maalin 2 maalin 3 maalin bil. waxay noqon karaan mid macnaha mid hoos u dhigta dadaalkaad soo sameynaysay. ay isku day inuu noqdo dadaalkaaga mid macnaha mar walba aad joogtaysid. sidaad ku joogtayn kartaa dadaalkaaga? haddaba samee hadafyo gaar ah iyo kuwa dhab ah. way adag tahay qofka bini'aadinka inuu joogteeyo waxa uu u baahnaa inuu sameeyo. si aad u joogtayso waa inaad haysataa fikrad aad u adag oo aad u baahan tahay inaad samayso. markaad bilowdo wadadaada cusub, samayso yoolal sahlan, natiijooyin gaar ah oo la qiyaasi karo walaal. haddaba si aad u joogtayso u samee jadwal naftaada. waxay noqon kartaa mid adag in lagu dhaqmo howlaha iyo ballanqaadyada la sameeyo, laakiin jadwalka qorsheeyaha ama jadwalka ayaa ku sii wadi doona wadada oo ku sahli doono ama mar walba kaa caawin doono qorshayaashaada maalinlaha ah si aad u hesho wax kasta oo la qabto waqtigii loogu talagalay. waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad fahamto ballanqaadyada aad samayso oo aadan u haysan waqti. ileen ballanqaad ma samayn kartid adigoon waqtigaaga ka warhaynin. haddii aad noqoto mid waqtigiisa ku dhex yaacsan yahay, ballanqaad walbood samaynaysaa laakiin ma noqonaysid mid oofiya ballantii u qaaday. haddaba si aad u joogtayso, iska xakamee xilliyada dhabta ee howl kasta aad u qoondaysay. maahan inaad midba mid kale ku gaarsiiso. haddii aadan hubin inta ay hawsha qaadanayso waqtigaad ugu tira gashay, ma ahani ka badan waa inaad siisaa. ileen
shaqadaadii inaad dhamayso mooye mid kale uma gudbi kartid. Hadhihin midaan haaf baan ugu tagayaa, midaan ayaan qabanayaa maanta, tan beritoole waan qaban karaa. Maya, midii aad bilowdo waa inay waqtigeeda dhamaysataa. Haddii aad waqti kale u baahatana aad ku darsataa si aad midaas ugu faraxalato hal mar. Haddaba naftaada abaalmari mar walba oo aad guul gaarto. Waxay kaa caawinaysaa ama ay kuu dhiirigelinaysaa inaad hawshaada si dhiiranaan aad ku qabsato, ama waxaad dareemaysaa inaad hawshaada ku faraxsan tahay. Ileen hawshu waa cibaado, cibaadadaana maaha inaad ku dheesho.